labadani wiil iyo gabadhani waa saaxiibo aad isku jecel. wiilkani wuxuu ku tuuray gabadha wiilka kale, gabadhani sidoo kale ayadna waxay ku tuurtay wiilkii. way ku ciyaarayaan. marka wiilkii telefoon ayaa usoo dhacay, dhaxdooda wuu ka baxay. telefoon ayuu usoo baxay, telefoonkiisa ayuu iskala hadlayaa. balse wax yar kadib gabadhii si lama filaana madaxa ayaa ku xanuunay. talow ma runbaa mise waa been? waxaan arki doonaa. mise dan ayay ogla jeedaa. marka wiilkii kale usoo dhowaaday, garabka ayayba qabsatayba. saaxiibkaana jecel ayuu dareemay, wuu yaabay, wuu sii daayey. wax yar kadib asagoo yaabsan waxaa soo laabtay wiilkii telefoonkiisa soo dhammaystirtay. sidii ayaa loo istaagay. markuu imaaday wuu yaabay, wuxuu yidhi maxaa dhacay? waxba ma dhicin, waa caadi. hayana fariisi ayuu dhahay. waa la fadhiistay. meesha ayaa laga bilaabo hadalkii. saaxiibkaas oo telefoonka jecel ayaaba la jilayaa, dhabarkiisa lagu jilayaa. gabadhani waxay rabtaa labadan wiil ee saaxiibaha inay isku dirto. midna jecel bay la wadaa, midna jecel khayaano oo qarsooni ay la wadaa. wiilkii maalin kamida wuu soo baxay, ubax ayuu soo sitaa. wuxuu rabaa inuu saaxiibtiisu keeno. ayadana sawirkiisa ayay fifiirsanaysaa. markuu soo kor istaagay, sawirkiisa ayay haysataaba. waxay rabtaa labada ninba inay isla shukaasato, midba mar iyadoo la ogeen. marka waa kana ubaxa way ka qaadatay. ubaxani ma ii waday? ha ayuu yidhi. way ku faraxday. ubax aad u qurux badan waaye ayay tiri. marka ayadana silis yar ayay usoo bixisay. hoo qaada ayay tiri. waa mahadsanta ayuu yidhi. qoorta ayuu gashanayaa. xiro ayay tiri. waa mahadsanta adna sidoo kaleeto. farxad ayaa maalintii xigtay saddexdooda isla socdaan. gabadhani wiilku waxay rabtaa inay sawir la gasho, balse saaxiibkiis ayaa ka celcelinaya. wuxuuna uga celcelinaya asagaa jecel, ma oga asaga warka ma hayo. maxaad iiga celinaysaa sawir aan la gale? may iska daatanayo. markaasuu leeyahay soo baxay ay tiri. saaxiibkiis buu ka qabanayaa, balse waxba ma ogo. sawir ma gela sida kan anaa geli sawir ayuu leeyahay. anaa naga qaadaadi, waxba nagama qaadaysid. markaas sawir la geli raba wiilkii gabadha ayuu ku tuuray. telefoonka ayaa dhacay. ma uu ogolo inuu sawir la galo, waayo maseer wuu ka maseerayaa. wiilkii markuu telefoonka dhulka soo qaaday wuxuu arkay labadii iyagoo gacanta haystaan. ayuu telefoonkiisa ka arkaa. niyad jab ayaa ku dhacday. wuu iska soo tegay. gabadhii ayuu niyad jab buu ku riday. wuxuu ogaaday saaxiibkiisa inuu gabadhi jecel yahay. gabadha ayuu muuqaalka usoo diray. markuu usoo diray way naxday. alla hooga iyay tiri. way wacday. may waxa saad u malaysa wax uma jiraane. abbow iga raalli noqo, aan kulano. marka wiilkii saaxiibkiisa baskoolada ayuu usoo qaatay. xabadii ayuu ku dhuftay. wuu dilay. sidii ayuu oga tagay. maalintii xigtay gabadhii iyo wiilkii ayaa isla socdaan. waxay la kulmeen oo iska socdaan oo iska faraxsan bay waxay la kulmeen wiilkii kale uu dilayay saaxiibkiis. alla wakaa wiilkii saaxiibka wakaas. maxaa markuu saa u arkay wuu naxay si lama filaan ah. waayo qofkii uu dilay ayaa wadada soo hor istaagay. xasuus ayuu gadaal u galay. xabad ayuu ku dhuftay, balse xabadda waxay ku dhacday gabadha siliska ay siinaysay uu qoorta gashanayay.
birta ayay ku dhacday xabadda sida ayuu kusoo badbaaday kiina markuu arkay wuuba cararayba big ayadna way kusoo oroday waxay ku tiri iga raali ahow qalad weyn ayaan kaa galay cafi maxaan ku cafiyaa qof khiyaano ayaa tahay qof khiyaano oo jaceylka ka faa'iidaysta aan kuu qabayay tahay waan ku dili markay aragtay inuu baskoolo ku hayo ayay naxday haddana wuuba u quuri waayo inuu dilo jaceylka ayaa ka tambadiyey asaga ayaa isdilay nin wuu qalbi jilicsan yahay allah waxay tiri way ku kor oonaysaa sababtoo khiyaanada ay samaysay ayay wax walba ku weyday